kulan wanaagsan dhamaantiinba soo dhawaada daawadayaal kani waa muuqaal cusub oo soo koobaya dhismaha nolosha iyo qoyska cusub iyada uu soo koobi doono sidoo kale caqabadaha mararka qaybtood horjoogsada gaaritaanka yoolalka guur iyo geediga nololeed ee mustaqbalka lamaanuhu ay damcayaan. halka kan waxaan ku soo koobi doonaa 7 arrimood oo lamaanaha u sahlaya goori ayaan walbaba inay wada joogaan inkastoo ay qadari jirto haddana caqabad kasta oo keeni karta kala fogaansho iyo kala tag waa wax aadamuhu sameeyo waxaase loo baahan yahay in marka hore ay jirto xeelad lagu wajihi karo wax kasta oo kala tag iyo kala qoqob keeni kara. in nolol qoys la yegleelo ma aha wax sahlan marka la eego caqabadaha idin soo wajihi kara iyo siday muhiimka u tahay inaad xiriirkiina ilaalisaan. laakiin nasiib darro waxaa jira kuwa kale oo ay tallaabadoodu la rogmato ugu dambeyntiina kala taga taasoo caqabad weyn ku ah gaaritaanka yoolkooda. haddii arrimahan aad ku dhaqantaan adiga iyo qofka jaceylkaaga ah waxaa hubaal ah in xiriirkiinu awood yeelanayo farxadiinuna ay sii kordhayso marba marka ka dambeysa. xitaa haddii aad ugu yaraan 3 ka mid ah ku aragtid noloshiina waxaad ku socotaan waddo sax ah oo ay tahay inaad sii ilaashataan. qodobka ugu horeeya waan ku jeclahay qofka aad nolosha isla wadaagtaan ama xiriirka leedihiin ku dheh waan ku jeclahay maalin kasta ugu yaraan hal mar. taasi aad bay muhiim u tahay inaad si joogto ah u muujiso sidaad ugu faraxsan tahay jaceylkiina ugana mahad sheeganaysid iyada oo aad ku qancinaysid inay samaysay dadaal u muuqda in guusha aad haatan gacanta ku haysaan sababteeda ay tahay ilaahay ka sokow. eraygaas wuxuu mar walba cusboonaysiinayaa iftiinka qalbiga uu jaceylka idinka dhexeeya abuuray. yaysan kula noqonin in marba haddii aad isla joogtaan ay iska caddahay inaad jeceshahay sababtoo ah aad bay u habboon tahay in jaceylka uu mar walbaba afkaagana ka soo baxo adigoo xitaa muujinaya mararka qaybtood. qodobka labaad ka hortagga masayrka. kalsoonida waa tiirka ugu weyn ee ku dhisan yahay xiriirka lamaanaha. haddii ay meesha ka baxdana xiriirkaasi wuxuu qarka u saaran yahay inuu burburo taasoo caqabad ku noqon karta in noloshiinu ay hore usii socoto oo aad gaartaan meesha aad haminaysaan. marka ay kalsoonidaas daciifto waxaa meesha soo galay maseer kaasoo ah in qofka aad isjeceshihiin uu kaaga shakiyo inaad qof kale dhankiisa u janjeerto. marka ugu horeysa aad dareentid in kalsoonidaada ay yaraanayso la wadaag xaaskaaga ama ninkaaga si aad wadajir uga xalisaan arrimaha jira inta aysan tala faraha ka bixin. qodobka 3 waa shaqada guriga. ma habboona in hawsha guriga lagu sii daayo hal qof oo kaliya. isku day in adiga iyo lamaanahaaga aad kala qaybsataan shaqada dabiiciga ah ee guriga nooc walba ay ahaataba. xitaa haddii aysan suuragal ahayn in aad si siman u kala qaybsataan samee liis oo qof walba ha lagu ogaado hawl cayiman oo uu qaban karo. in ruuxa kaliya lagu eegto hawsha guriga waxay sababi kartaa culays horseeda in hal qof uu dhibsado nolosha qoyskaas ka dhaxaysa. taasna waxaa habboon in laga sii hortago mar walba. qodobka 4 hadiyado yaryar. inta badan lama soo xusuusto balse aad bay u wacan tahay inaad si joogto ah uga fakartid waxyaabaha iska sahlan ee aad ku heli kartid dhoola cadaynta qaaska ah ee lamaanahaaga. way kasii qurux badan tahay marka aad taqaanid waxyaabaha uu qofka aad nolosha wadaagtaan jecel yahay. balse waa inaad u qanacdid wax walba oo hadiyad ahaan lagaaga dhigo xitaa haddii ay aad u yaryihiin waayo muhiimadda ugu weyn waa qalbiga waxaas kula soo jeclaaday. qodobka 5 cuntada. isku mar wax cuna isku meelna ku cunteeya ilaa inta aad awoodaan. suuragal ma aha inaad xilliyada oo dhan isla cuntaysaan laakiin ku dadaal in ugu yaraan hal waqti aad isla cuntaysaan. xilligaas ha ku mashquulin taleefankaaga oo ha iska aamusnaanin. taas beddelkeedana ka sheekaysta maalmaha iyo waqtiyada muhiimka idin ah. si gaara xooga saara qorshihiina ku aadan maalmaha fasaxa haddii midkiin ama labadiinuba aad shaqaysaan. ku raaxaysta isuheshashadiina xilliga cuntada haddiiba aad awoodaan. 6 madax banaani. aqoonso in qofka nolosha kula wadaaga uu yahay ruux kale oo aad ahayn adiga oo laba lagaa dhigay. taasi micnaheedu waa inaadan ku xukumin go'aanada nolosha una tixgelisid inuu yahay qof fikrado gaara leh amaba yeelan kara qorshe gooni ah. waxaa kale oo habboon inaadan lamaanahaaga dabagal ku sameynin si xiriirkiina uusan dhaawac usoo gaarin. waxyaabaha ugu muhiimsan ee la iska ilaaliyo waxaa ka mid ah inaadan baaritaan ku sameynin taleefankeeda taasoo mararka qaybtood caqabad ku noqoto qoysaska cusub iyo kuwa dhismayba. qodobka ugu dambeeya ee 7 damaashaad. xusuusnow mar walba muhiimadda ay leedahay inaad isla aadaan fasax dalxiis ah. safarku ha dhowaado ama ha dheeraadee in aad waqti iskula soo qaadataan meel ka baxsan meeshii aad joogteen waxay horseedaysaa inaad samaysataan xusuus cusub waxaana ku sii adkaanaya tiirarka xiriirkiinu ku dhisan yahay. dalxiis kasta wuxuu sii xoojinayaa jaceylkiina. dhismaha noloshu way caqabado badan tahay
balse waxaa guul ka gaara dadka markasta hadafkoodu cad yahay.